aynu ku bilownay intii Maraykanka iyo inta badan reer galbeedku ay ku mashquulsanaayeen dhibaatooyinka gudahooda iyo siyaasadaha madhalayska ah ee caalamiga ah. Shiinuhu shaqadiisa ayuu aamusni ku wataa. Iminkana waxa uu bilaabay dhacdo u eg malaawaal cilmi, laakiin uu isagu sheegay in 9 sano kadib aynu indhaheena ku arki doono. Dowladda Shiinuhu waxa ay bilowday qorshe ay ku abuureyso nidaam hawada sare ku rakiban oo ilayska qoraxda koronto ka dhalinaya, nooca loo yaqaan solar system. waxa uu Shiinuhu sheegay in sanadka 2030 uu xadidan 1 megawatt oo koronto ah ka dhalin doono nidaamkan. Marka la gaadho horaanta sanadka 2049, xaddiga korontada uu Shiinuhu ka helaya xaruntan hawada sare ku taalla waxa uu noqon doonaa 1 gigawatt, taasi oo ka badan awoodda koronto dhalinta ee warshadaha nukliyeerka ee tamarta laga dhaliyo. Haddaba maxay tahay sababta tamarta loogu doontay hawada sare? Haddii aad isweydiinayso su-aashan, sababtu waa labadan qodob ee soo socda. Ta koowaad, qoraxda dhulku maalintii oo keliya ayay jirtaa, laakiin hawada sare marka loo baxo qoraxdu ma dhacdo. Sidaasi awgeed xarunta tamar dhalinta ee hawada sare qorax joogta ah ayay helaysaa. Qodobka labaad, gibilka sare ayaa dhulka daboola. Sidaasi awgeed waxaa yaraada fallaadha qoraxda iyo soo gaadhaysa. sidaas oo kale gibilku waxa uu dib u nuugaa ku dhowaad kala badh tamarta qoraxda iyo dhulka soo gaadha. labadaas arrimoodba kama jiraan hawada sare. Nidaamka koronto dhalinta ee hawada sare ayaa markasta ilayska qoraxda ka helaysa in ka badan inta uu heli karo nidaam la mid ah oo dhulka ugu rakiba. Shiinaha ayaana laga sugayaa sanadka 2030 inuu helo korontadaas awooda badan.